Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay in yoolka ugu dambeeya uu yahay inuu yeesho awoodda ugu badan ee hubka nukliyeerka, isagoo dallacsiiyay tobaneeyo sarkaal oo militari ah kuwaasi oo ku lug leh tijaabooyinkii dhowaan ee gantaalada qaaradaha isaga gudba kuwaasi oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Ku dhawaaqistani ayaa timid kadib markii uu Kim kormeeray tijaabada gantaalka dhawaangalka ah ee Hwasong 17 kaasi oo ka mid ah kuwa qaaradaha isaga gudba ee ICBM, waxaana uu ballan qaaday inuu iska caabin doono hanjabaadda nukliyeerka ee ka imanaysa Mareykanka, taasi oo uga jawaabi doono weerar nukliyeer ah waa haddii isaga lasoo weeraro. Dhisidda awoodda nukliyeerka ah ayaa ah mid ilaalinaysa sharafta iyo madax-bannaanida dowladda ee dadka, waana hadafkeena ugu dambeeya oo ah inaan helno xoogga istiraatiijiyadeed ee ugu awoodda badan adduunka, waana xoogga aan horey loo arag qarnigan, ayuu Kim ka yidhi kolkii uu dallacsiinayay saraakiisha. Waxa uu ugu yeeray gantaalka Hwasong 17 hubka istiraatiijiyadeed ee ugu xooggan adduunka, waxa uuna sheegay hogaamiyuhu inay taasi muujinayso ka go'naanta iyo awoodda Kuuriyada Waqooyi ee ay ugu dambeyn ku dhisayso ciidanka ugu awoodda badan caalamka. Master Kim waxa uu sheegay in marna aysan ka joogsanaynin in ay gaaraan hadafkooda dalkooda, waa hadafka uu leeyahay dalkiisa, taasi oo ah inuu dhiso ciidan awood badan oo ku filan sugitaanka amniga iyo difaaca dalkiisa. Waxa uu tilmaamay Kuuriyada Waqooyi inay la kulmayso caqabado waaweyn taasi oo u gudbi karaan in shacabkiisu ay isku duubnaadaan. Sidoo kale waxa uu hanjabaad u jeediyay dowladaha dariska ah, isagoo carabka ku adkeeyay in marnaba aysan cid ka baxsan doonin ciqaabta ciidamadiisa waa haddii lasoo weeraro iyaga. Waxa uu tilmaamay in dowlado gumaysta ah oo ula jeeda Mareykanka iyo reer galbeedka inay doonayaan in mandiqadu ay gubato oo ay isla holacdo, iyagoo kumanaan mayl ka soo safray dalalkooda, taasi oo la fahansan yahay inuu ula jeedo Mareykanka oo ciidamadiisa ka soo waday dalkiisa isagoo keenay dalalka Jabaan iyo Kuuriyada Koonfureed, kuwaasi oo daris la ah dalka Kuuriyada Waqooyi, si halkaasi dagaal hadduu uga dhaco ay u caawiyaan dowladahan. Kuuriyada Waqooyi bilihii u dambeeyay waxa ay sameynaysa tijaabooyin gantaalo aan horey loo arag, waxaana tiro gantaalaha ay dul marsiisay dalka Jabaan iyo sidoo kale dalka Kuuriyada Koonfureed, halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo Mareykan ah. Tallaabadaasi oo dhalisay in Mareykanka iyo reer galbeedku ay ka caroodaan oo Mareykanka uu diyaarado dagaal oo kuwa istiraatiijiyadeed ee duqeymaha culus uu usoo diro gacanka Kuuriya, halkaasi oo ay ku sameeyeen dhoolotusyo wadajir ah oo qayb ay ka ahaayeen dalalka Jabaan iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed. Tiro dhowr jeer ah saraakiisha ugu sarsareysa Mareykanku waxa ay ka digeen khatarta ka imanaysa ninkan Kim ah, iyagoo tilmaamay inuu ka khatar badan yahay dowladaha Shiinaha iyo Ruushka marka loo eego waxa ay ugu yeereen mas'uuliyad darrada uu ku kacayo iyo inuu yahay shakhsi talada dalkiisu gacanta isaga uga jirto oo aan lahayn wax la taliyayaal ah, kuwaasi oo fahansiin kara cawaaqibta ay leedahay haddii dunida ay ka qaraxdo weerar nukliyeer ama sidoo kale dagaal quwado nukliyeer ee haysta ay isku weeraraan. Arrinkani oo idil waxa uu imanayaa iyadoo gacanka Kuuriya xaaladiisu ay kasii darayso, si la mid ah dunida meelo badan oo ka mid ah ayaa iyana waxaa ka jira xaalado xiisado sare u qaadaya in la adeegsado nukliyeerka, waxaana ka mid ah dagaalka ka aroorsan Ukraine oo sare u qaaday in dowladaha Ruushka iyo sidoo kale gaashaanbuurta NATO ay isku horimaad dhex mari karo. Sidoo kale gacanka Taiwan, dowladaha Shiinaha iyo Mareykanka ayaa xiisad halkaasi ay ku dhex martay sanadkan, waxaana Mareykanku uu sheegay inuu taageerayo Taiwan oo gooni-goosad ka ah ee dalka Shiinaha, inkastoo Mareykanku uu tilmaamay inuu aqoonsan yahay in Shiinuhu uu yahay dal mid ah oo xitaa Taiwan ay ka mid tahay siyaasaddaasina aysan wax iska bedelin. Haddana waxa uu tilmaamay in haddii Shiinuhu uu adeegsado awood si uu u soo celiyo Taiwan, Mareykanku uusan ka waaman doonin difaaca xulafadiisa gobolka, waxaana horaantii ama markii uu sanadkani dhex marayay dalka gooni-goosadka ka ah Shiinaha ee Taiwan soo caga dhigatay diyaarad siday haweeneyda xilka kasii degaysa oo ahayd afhayeenka aqalka Koongareeska Mareykanka ee Nancy Pelosi. Tallaabadaasi oo loo arkay inay tahay daandaansigii ugu ballaarnaa ee qarnigan Mareykanku uu ku sameeyo Shiinaha, hase ahaatee Shiinaha waxa uu muujiyay in uu naftiisa ka adag yahay oo waa uu isxakameeyey si dunida ay uga baaqsato xiisad hor leh, maadaama hadda lala dala dhacayo waxa ka dhashay oo dhibaatooyin ah ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine ku dhex maraya ee dalkaasi Ukraine. Midowga Yurub warkama uusan soo saarin xiisadahan inta badan ka aroorsan ee qaaradda Aasiya oo isagu waxa uu ku mashquulsan yahay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay dagaalka Ukraine. Midowga Yurub ayaana bilihii u dambeeyay waxa uu muujinayaa cagajiid ku aadan siyaasadaha Mareykanka ee ah in dunida la maquuniyo
waxaana midowga uu fahamsan yahay in Mareykanku uu ku daneysanayo isagoo doonayo inuu gaaro hadafyo isaga u gaar ah isagoo dhex marinaya xulafadiisa waxa ugu yeeray oo inta ugu badan ah dalalka Yurub. hase ahaatee khubaro badan oo Mareykan ah oo ka hadlay isxulafaysiga Mareykanka iyo sidoo kale dalalka reer galbeedka oo ugu horeeyaan midowga Yurub waxa ay tilmaameen Mareykanku inaysan baryeenin ama uusan ka saa'idsanaynin awood isxulafaysiga uu kula jiro dalalka Yurub. hase ahaatee waxa ay tilmaameen arrinkaasi inuu yahay in loo abaalgudayo Mareykanka maadaama uu dalalka Yurub caawiyay xilliyadii ugu adkaa ee soo maray noloshooda oo ay kala jeedaan xilligii uu soo weeraray xukunkii Naaziga ee taladiisa uu hayay ninkii lagu magacaabi jiray Adolf Hitler 1940meeyadii, kolkaasi oo uu la wareegay inta badan Yurub si gaar ah dalka Faransiiska, waxaana weeraro uu ku qaaday dalka Ingiriiska. hase ahaatee waxaa soo farageliyay dalka Mareykanka oo ciidamo ka soo dejiyay Faransiiska, halkaasina kaga xoreeyay Yurub inteeda badan Naaziga. waxaana markaasi Yurub iyo Mareykanku ay saxiixdeen heshiisyo hor leh oo difaac wadajir ah oo ugu horeeyo heshiiska gaashaanbuurta NATO, taasi oo Mareykanku in badan ka faa'iiday xilliyadii dagaalkii qaboobaana uu si aad ah uga faa'iideystay awoodda dalalka Yurub ee isku tagay. waxaana markasta oo Mareykanku doonayo dal cunqabateyn uu saarayo uu kaashada xulafadiisa oo G7 kuwaasi oo qayb ay ka yihiin dalalka Canada, Japan iyo midowga Yurub, kuwaasi oo cunqabateyn kusoo roga cid kasta oo Mareykanku uu doonayo in cunaha uu qabto. waxaana Mareykanku haatan uu la kulmaya caqabado waaweyn oo ku aadan doorka hogaaminta dunida ee isagu uu ku kali ahaa 30 sano oo aynu soo dhaafnay. waxaana Mareykankan caqabadaha ugu waaweyn uu kala kulmaya bariga dhexe oo dalal Sacuudigu ka mid yahay ay ka cagajidayaan in ay weli sii raacaan siyaasadaha hal-dhinaclaha ah ee Mareykanka. sidoo kale Mareykanku waxa uu dareemayaa inuu cadaadis xoogan kala kulmayo awoodda Shiinaha ee sare u kacaysa, waxaana in badan madaxda Mareykanka iyo la taliyayaashu ay ka digayaan in laga mashquulo la tartamida Shiinaha, iyagoo Mareykanka kula talinaya in uu focus ka saaro in Shiinaha loo diido in waqtiga dhow uu la wareego awoodda dalalka dunida ee caalamka. Shiinaha waxa uu sameynayaa farsameynta hubka iyo sidoo kale farsameynta warshadaha wax soo saarka dalkiisa oo sare u qaadayo. sidoo kale siyaasadda dhaqaalaha ee dalkaasi ayaa laga dhigay mid furfuran oo aanan ahayn siyaasadda shuuciga uu ku jabay midowgii Sovieti. siyaasad ahaan dalkaasi waa shuuci, hase ahaatee siyaasadda dhaqaalaha waxa uu isticmaalayaa waxa loo yaqaano siyaasadda ganacsiga iyo dhaqaalaha xorta ah, waxaana in badan uu soo dhaweeyay dalkaasi dalal badan oo reer galbeed ah shirkadahooda waaweyn si halkaasi ay ugu yeesheen xarumahooda. waxauna ka faa'iideystay awoodda dadka shaqayn kara ee dalka Shiinaha oo ah mid ugu ballaaran dunida maadaama uu yahay dalka ugu tirada badan caalamka marka la eego baaxadda dadeed ee dalkaasi. waxaana shaqaalaha ku sugan gudaha Shiinaha ay shirkaduhu ay ku xulanayaan inay xirfadoodu sareyso muddo badanna ay shaqayn karaan, sidoo kalena mushaarkoodu uusan badnayn beddelka dalalka reer galbeedka kuwaasi oo hay-adaha shaqaalaha iyo xisbiyada u dooda ay yihiin kuwo xoog badan, taasi oo dhalinaysa in mushaarka uu sare u kaco. sidoo kale shaqaalahoodu ay xirfad yar yihiin, tir ahaanna ay yar yihiin, si la mid ahna in aysan ogoleen in xuquuqdooda lagu tunto, tallaabadaasi oo shirkaduhu waaweyn aysan jeclayn.